السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطعنيني هليد أوروك إسرائيل قيبتي سيد حيطانات وحر مقالكنا كل فقرينا طارق نوليتي مدن حاج محمد عبد الله حياسي إيها حويدي كوي طبنات دلير أوروك إسرائيل wuxuu ku dhashay mudane xaaji maxamed cabdullaahi magaalada muqdisho sanadii 1918 wuxuuna ku barbaaray nolol dhexaad ah sida ay la wadaageen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed markii uu jiray dhowr sano ayuu bilaabay barashada Quraanka Kariimka iyo kutubo yaryar wuxuuna kale oo u bartay mabaadi'da diinta Islaamka intii wadanka laga helayay markii uu weynaaday wuxuu doortay inuu barto luqadda Talyaaniga wuxuuna ahaa nin aad u akhlaaq wanaagsan arrimihiisana dhexaystay sanadii 1935 waxay xukuumadda Talyaaniga u doortay inuu shaqaale caadi ah ka noqdo xafiisyada dawladda raalina kama uusan ahayn inuu qabto shaqo aan dalka dani ugu jirin laakiin waxa ku khasbay xaaladihii dhaqaale ee jiray inuu u shaqeeyo dawladii gumeysiga markii uu gumeystay Ingiriiska dalka qabsadayna wuxuu isna u magacaabay shaqo uu hayay dawladii Talyaaniga shaqadaasna kama uusan tagin ilaa la gaaray xilligii xukuumadda Soomaalida wuxuu ahaa xubintii 12aad ee ka mid ka ahayd xubnihii 13 ah ee aasaasay xisbigii midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana sax ah in la yiraahdo wuxuu ahaa nin nadiif ah qalbigiisana saafi ah hami aad u sarreeyana leh wuxuuna ku sifoobay wanaaga oo dhan wuxuu jeclaa in wadankiisu koreeyo shacabkiisana ay la mid noqdaan dadweynaha caalamka wuxuu daacad u ahaa shaqada isaga oo caan ku ah in taageeridda xisbiga midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuuna u istaagay inuu dadka ugu yeero wadaniyada saxda ah taas oo uu ku gaaray balamo waaweyn oo ay isku bahaysteen wadaniyiinta ah ee xisbiga wuxuu ahaa mid la wadaaga saaxiibadiisa sidii looga gudbi lahaa caqabada kasta oo dhanka gumeystaha ah sanadii 1949 waxay u wareejisay xukuumadda gumeysiga magaalada Boosaaso shaqada canshuuraha waxaana lagu tuumay inuu yahay qofka kaliya ee gadaal ka wada dhaqdhaqaaqa siyaasadda xisbiga warqadaha xisbiga dirayo ayuu qoray jiray wuxuuna qorsheyn jiray wadooyinka la marayo waxaana la isku dayay in la qaarijiyo wayna suuragali weyday kadib markii la waayay cidii fulin lahayd arintaasi waxaana loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho sanadii 1956 wuxuu aaday dalka Sacuudi Carabiya si uu soo guto waajibaadka xajka kadibna wuxuu ku soo laabtay shaqadiisii karaanimada isaga oo mid uga dalacayay ilaa uu ka mid noqdo shaqaalaha ugu waaweyn ee rasmiga ah ee xukuumadda isaga oo sanadihii dambe joogay dhanka canshuuraha ee dekedda Muqdisho. Wassalaamu calaykum.